muuqaalkan arkaysan waa garoonka ciyaaraha ee magaala xebeeda Berbera kaasi oo loo yaqaano Cabdille Stadium waxaanu ka wada warqabnaa ama baynu ogsoonahay inuu garoonkan ka mid ahaa garoomada ay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland guddoonsiisay rooga casriga ah ee cagaaran si loo dhigo kuna dhiirigeliso daayarta ku dhaqan gobolkan saaxil hase ahaatee muddo haatan laga joogo hal sano waxaa si rasmi ah ugu loolamayay falaaraha cadceedda iyo rutubada habeenkii ka dhacda magaala xebeeda Berbera maraan mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah daayarta ku dhaqan magaala xebeeda Berbera waxay u sheegeen telefishinka caalamiga ee Somali Cable inay dayacnaan soo food saartay garoonka iyo roogii casriga ahaa ee loogu talagalay in loo dhigo daayarta haatan ku foogan ciyaaraha anagoo xaalad adag oo dhalinyaradii ciyaaraha ay soo food saartay iyagoo isboortigii gobolka Saaxil hoos u dhacay halkaas oo garoonkii gobolka Saaxil roogii cagaarnaa ee la dhigay sanadkii hore uu weli yaalo waxaan isduwaa baaq uga dareynaa iyadoo garoomadii kale gobolka Saaxil la dhigay garoomadii dooga la dhigay in garoonkaygu dhex yaalo ay riyaha iyo aydu ay u hoydaan marka waxaan halka baaq uga dareynaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha oo xalay tolo burca ku sugnaa inuu xaaladda isboortiga gobolka Saaxil ka jirta horta gobolkii Saaxil gobolada kale meel aan roogii cagaarna la dhigin ma jirto gobolka Saaxilna wali alaanka waxba laga ma hayo garoonka dooga bari hore la keenay haddana waxa dul yaala maxaa la yiraahdaa shiraaqi uu googay oo waxa goysay cadceediba googoysay nin waxaan leenahay sida ugu dhaqsiya badan leh in garoonka dooga naloo dhigo sida garoomada heerka caalamiga kale ee gobolada kaleba in anagana garoonkaygiina loo hagaajiyo anagoo kamid ah sportska gobolka Saaxil runtii wallahi waxaan ku tilmaami karaa mid ayaan daraa anagoo ah goobtii dhaqaalaha Soomaaliland anagoo ah ciyaartooydu ay finalka taagnaayeen waxaan leenahay jaaliyada aad u badan waxaan leenahay dad maalqabeeno oo gobolka ku sugan laakiin anigu waxaan u arkaa wasaaradda sportska inay noqotay meel laga shaaheeyo aysan ahayn mid u soo jeeda dhalinyarada gobolka Saaxil in xagga sportska naga haysto dhibaato aad u badan waxaan doonaynaa laga caawiyo kubadda cagta si dhalinyarada gobolada kale ka wanaagsan anagu hadan nahay Berbera sanadkii dhawaatay arkaysan halkan kubadda cagta ka soo gaarnay sanadkan waxaan u baahanahay insha Allah taala in halkii meel ka wanaagsan ba gaarno waxaan ku hamweynaynaa kubadda cagta meel wanaagsan ka gaarno Assalaamu calaykum xagan baa waxa ugu diray wasiirka ciyaaraha waxaan leenahay wasiir wax kastaba waxay kaalkaayeen ka gooyaan wasiir soo ee garoonka kubadda cagta Berbera وعبد الرشيد مبارك عبد الرشيد سول تلفزيون كعالمي Somali Cable مقالة Berbera